Waxaynu ka hadli doonaa bilaha hore ee uurka, 7 waxyaabood oo hooyada u wanaagsan iyo 5 waxyaabood oo lagama maarmaan ah inay hooyada ka fogaato. Fadlan haddaba intaynaan u gelin, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe-ka saarto. Haddaba bilaha hore ee uurku waa waqtiga ugu xasaasisan. Haddii hooyadu qalad yar samayso, ilmaha ayay saameyn kartaa. Casharkan haddaba waxaan ku sharixi karnaa waxyaabaha hooyada u wanaagsan iyo waxyaabaha ay hooyadu ka fogaanayso bisha hore. Haddaba haddaynu ugu soo horreysiino waxyaabaha hooyada u wanaagsan bisha hore uurka ay samayso waxaa ka mid ah inay qaadato folic acid. Folic acid waa maxay? Folic acid-ku waa daawo aad u muhiim ah bilaha hore ee uurka, waxayna ka caawisaa in maskaxda iyo laf-dhabarta ilmuhu u koraan si caadi ah, waxa ayna yaraysaa cilladaha ilmaha. Sidoo kale folic acid-du waxay u wanaagsan tahay hooyada, taasi oo ka caawisa dhiigga. Lambar 2 waxyaabaha kale hooyada u wanaagsan waxaa ka mid ah inay hooyada qaadato cunto nafaqo leh. Haddaba hooyada uurka leh waa inay heshaa cunto nafaqo leh oo isku dheeli tiran sida khudaarta, midhaha, ukunta, cuntooyinka birta leh. Muhiim aha inay cuntooyinka isku dardarto, laakiin hadba mid way qaadan kartaa. Lambar 3 waxyaabaha kale hooyada u wanaagsan waxaa ka mid ah inay hooyadu biyo badan ay cabto. Haddaba biyaha badani waxay jidhka ka caawiyaan inuu si fiican u shaqeeyo, waxayna yareeyaan matagga, daalka iyo in hooyadii maadaama bilahan uurka ay calool istaag badan hooyooyinka ka cawdaan in calool istaagga ay biyihi ay ka caawiyaan. Lambar 4 hooyada waxyaabaha kale u wanaagsan waxaa ka mid ah nasasho iyo hurdo ku filan in hooyada ay hesho. Haddaba hurdo ku filan in hooyada iyo nasasho inay heshaa waa lama huraan. Haddaba hooyadii hadday hurdo yar hesho waxay dareemi kartaa daal, walbahaar. Haddaba hooyada waxaa u muhiim ah inay seexato 7 saacadood ilaa 8 saacadood inay habeenkii heshaa hooyada u muhiim ah. Lambar 5 waxyaabaha kale hooyada u wanaagsan waxaa ka mid ah inay hooyadii ay samayso socod fudud. Haddaba socodka fududi wuxuu hooyada ka caawiyaa wareegga dhiigga, wuxuuna yareeyaa xanuunada dhabarka, daalka. Lambar 6 hooyada kale waxaa kaloo u wanaagsan inay antenatal care ay booqato. Haddaba antenatal care-ku oo waqti hore la booqdaa ama la tagaa waxay u muhiim tahay ayna u faa'iido tahay ilmihii yaraa iyo hooyadii ayay u fiican tahay. Waayo hooyadii haddii halkaa ku xidhnaato waxay heli kartaa talooyin caafimaad oo ku saabsan nafteeda iyo nafta ilmaha yar. Haddaba hooyada waxaa u muhiim ah inuu dareenkaagu degganaado, walbahaarka badanna ay iska yarayso. Badanaa walbahaarka badani wuxuu saameyn karaa caafimaadka hooyada iyo ilmaha. Haddaba intaa haddaynu kaga tagno 7 qodob ee hooyada wanaagsan haddaynu kaga tagno, waxaynu u gudbi karnaa ilaa 5 qodob aynu ka sheegi karnaa waxyaabaha hooyada ay ka fogaanayso. Haddaba hooyadu waxay ka fogaanaysaa daawooyinka aan dhakhtar u qorin. Hooyada haddaba waxaa u muhiim ah daawooyinka aan dhakhtarka u qorin, xataa daawooyinka dailiga loo qaato inay ka fogaato. Waxaa jira daawooyin fara badan oo inta badan la isticmaalo without prescription yacni qoraal aan ku xidhnayn farmasiyada waxyaabaha laga isticmaalo. Markaa hooyadu dawo oo dhan way ka taxadiraysaa. Hooyadu waxyaabaha kale ay ka fogaanayso waxaa ka mid ah shaaha iyo kafeega badan inay cabto. Waayo shaaha iyo kafeega badnaa markay cabto hooyada waxaa ku dhici kara hurdo la'aan. Walbahaar badan bay yeelan kartaa, ilmaha miisaankiisuna hoos buu dhici karaa. Lambar 3 hooyadu waxyaabaha inay ka taxadirto ama ka fogaato u muhiim ah inay culays ay qaaddo. Culayska badan ay qaaddaa hooyadu wuxuu ku keeni karaa dhabar xanuun iyo cawaaqib ku iman kara ilmaha iyo hooyada. Hooyadii waxaa kale oo muhiim ah inay ka fogaato soonka dheer ama cunto la'aanta. Waxa ay dhaadhicin kartaa nafaqooyinka u muhiimka ah ee ilmaha uu u baahan yahay ayay hoos u ridi kartaa soonkii iyo cunto la'aantii ay muddo isticmaalaysay. Hooyada waxaa u muhiim ah ay ka taxadirto balwadihii kala duwanaa. Haddaba sigaarkii ama qiiqii sigaarku waxay si toos ah u waxyeeleyn karaan ilmaha caloosha ku jira. Markaa hooyada waxaa ka mid ah balwadihii kala duwanaa inay ka taxadirto.